بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو هجاميها حزبك دريالك الصوماليات محمود محمد محمود waxaan taaniyad u dirayaa shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba maalinta qarannimada Soomaaliya 1 Luulyo 1960 oo maalinta ay dhalatay qarannimada Soomaaliyeed iyo xornimada Soomaaliyeed waxaan ka hadlayaa Soomaaliya dimuqraadiyadda iyo qarannimada Soomaaliya 1960 ilaa maanta oo 2023 sano 1960 Soomaaliya waxa ka curtay qarannimo Soomaaliyeed iyo dimuqraadiyad ay shacbiga Soomaaliyeed codkooda wax ku doortaan muddo 9 sano ah dawladii rayidka ahayd 1969 22 Oktoobar 1969 waxa dalka inqilaab kula wareegay golihii sare kacaanka oo hogaaminayay sareeya gaas Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto waxa la aasay maalintaas codkii shacbiga Soomaaliyeed 22 sano oo xukun military ah dalka lagu haystay Soomaaliya waxa la aasay codkii shacabka laakiin waxa la dhisay qarannimadii iyo dawladnimadii Soomaaliya 26 January 1991 waxa dalka xoog kula wareegay jabhado Soomaaliyeed oo ku dhisan qabiil oo dumiyay dawladii militariga ahayd ee kacaanka 26 January 1991 waxay aaseen jabhadihii qabiilka ku dhisnaa codkii shacabka Soomaaliyeed iyo qarannimadii Soomaaliya labadaba muddo 10 sano ah Soomaaliya wax dawladda kama jirin wax qarannimada kama jirin dagaal sokay ayaa ka jira dalka Soomaaliya 2000 ayaa waxa la qabtay shir dib u heshiisiin qaran magaalada Carta oo lagu soo dhisay qarannimadii Soomaaliyeed oo lagu raadinayo qabiil 4.5 anigoo hogaamiyaha xisbiga daryeelka Soomaaliyeed Maxamuud Maxamed Maxamuud waxaan mar labaad ugu baaqayaa dimuqraadiyadda urdanka ee ka dhalatay 53 sano Puntland State Somalia Federal Republic in aan ugu baaqaynaa shacbiga Soomaaliyeed in la taageero iyo dawladaha ama ururada caalamiga ah ee Soomaaliya saaxiibka dawladda waxaan idin sheegayaa shacbiga Soomaaliyeed mar labaad in cadceed ka soo baxday bari aan sacab lagu qarin karin shacbiga Soomaaliyeed codkoodii ayay ku cilbixeen Puntland State waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo federal maamulada Soomaaliya iyo dawladda dhaxaba in la taageero sidii dimuqraadiyad caam ah ay uga dhalato Soomaaliya one man one vote oo shacbiga Soomaaliyeed codkooda ku cilbaxaan waxaan ku soo gunaanadayaa shirkan jaraa'id 2000 shirkii ka dhacay Carte 23 sano ka hor oo lagu soo dhisay dawlad qabiil lagu raadinayo qaran Soomaaliyeed kadib 25 May 23 sano kadib 2023 dimuqraadiyaddii codka shacabka ee ka curatay Puntland State waxaan ugu baaqayaa shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in loo diyaar garoobo in Soomaaliya oo dhan ay la gaarsiiyo one man one vote oo shacbiga Soomaaliyeed codkooda ku cilbaxo doorashada soo socota ee 2026 ee ku astaysan doorashada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya 2000